kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada oo haya Somali TV magacaygu waa Bashiir Taajir. barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo safar shaqo ku soo gaaray magaalada Columbus. waxaan kaaga mahadcelinaynaa wasiir ogolaanshiyaha waraysigan inaad na siiso. ugu horeyn waxaad nooga warantaa waxaad ka qayb gashay shir ay soo abaabushay hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga ee Bulsho Trust kaasoo maalmahan ka socday magaalada Columbus. waxaa looga hadlay waxyaabo fara badan oo ammaanka iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya ay ugu waaweynayeen. aragti ahaantaada shirka maxaa kaaga soo baxay? طبعا شركة موضوع uu ka hadlayo موضوع xilligiisa la joogo موضوعيada aad bay muhiim u hayaan arinta amniga kamid ah arinta waxa kamid ah dhaqaalaha iyo soo kabsashada dhaqaalaha Soomaaliya iyo arinta siyaasadda loo dhan yahay marka mawaadiic aad muhiim u ah oo waqtigeeda la joogay gaar ahaan aniga موضوعيada aad aan u xiiseynay oo meeshan aan u imid inaan ka qayb galno waxay ahayd arinta amniga iyo xaaladda waddanka meesha maraysa iyo guulaha laga gaaray dagaalka al-shabaab iyo in maalmaha al-shabaab ay kooban yihiin marka ujeedada ugu weyn oo aniga hadda halkan u imid waa qorshe guud oo xukuumadda dan qaran prime ministerka madaxweynaha xubnaha golaha wasiirada dhamaantood ay u diyaarsan yihiin oo ah bulshada Soomaaliyeed ama waddan gudihiisa joogto ama dibaddiisa joogto in lala wadaago xogta iyo horumarada waddanka ka dhacaya marka imaan sheega meeshan wuxuu ku saleysnaa inaan soo gudbiyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan North America guud ahaan ama Mareykan ama gaar ahaan Ohio oo dadkii ugu badnaa ay ka yimaadeen inaan la wadaago horumarada ka jira dhanka amniga. waxyaabihii shirka looga hadlay sida haatan carabaabtay waxaa ka mid ah amniga oo wasaaradda hoos yimaada Soomaaliya ay haatan ka timid waa sidee xaaladda amni ee gudaha dalka Soomaaliya? xaaladda amniga aad bay u fiican tahay meeshii la rabay ma gaarin laakiin magaalooyinka waaweyn amnigooda gacanta ku jira waa sugan yahay dhibaatooyin dadka lagu sameyn jiray oo dhici jiray waa laga soo kabsaday wax badan baa laga qabtay nimankii amni darrada waddanka ku hayay oo khatarta ugu weyn ku ahay oo khawaarijta al-shabaab waa la sii bacsanayaa meel aad fog ayaa la sii marayaa awal magaalada banaankeeda gaar ahaan marka caasimadda laga hadlayo ayay deganaayeen magaalooyinka kale xataa kamaysan fogeyn oo magaalooyinka waaweyn waa u dhawaayeen laakiin hadda dhulka baadiyaha ah ayaa lagu sii bacsanayaa deegaanada qaarkood maalmo dhow waxay noqon doonaan meel gebi ahaanba maamulada qaarkood dowlad goboleedka qaarkood waxay noqon doonaan maalmo dhow gudaheed meel ka caagan al-shabaab oo al-shabaab aysan joogin kadibna kuwa soo haray ayaa wajiga labaad ee golka laga howlgeli doonaa si looga nadiifin lahaa. mudane wasiir waxaad sheegtay in al-shabaab xilligoodii ugu dambeeyay la joogo taas bedelkeeda waxaan aragnaa in maalin kasta iyo goor kastaba ay qaraxyo ka dhacaan caasimadii waxaad sheegtay in banaanada iyo dhulka baadiyaha lagu baacsanayo adigu ma isqabadsiin kartaa mudane wasiir dhulka baadiyaha oo magaalooyinka ka fogaa ayaa lagu baacsanayaa iyo maalin kasta daliilkan iyo qaraxyada ka dhacaya dalka gaar ahaan caasimadii? horta maalin kasta ma dhacaan goorma ugu dambeysay inaad maqlishid qarax inuu dhacay marka horta maalin kasta ma dhacaan laakiin mararka qaarkood qaraxyaa dhaca waxaad xasuustaa qaraxyada dhici jiray baabuur buu ah laakiin maanta waxa isqarxinaya waa qof marka farqiga waa dareemi kartaa baabuurtii la soo gelin jiray oo la qarxin jiray iyo ciidankii lugta ahaa oo inta meel gala inuu dhif iyo naadir uu noqday laakiin dagaalka lagula jiro oo baysaskoodii iyo meelihii ay kasoo duuli jireen iyo fadhidii waaweyn ay lahaayeen iyo deegaanadii ay maamuleen ay kasii baxayaan kasoo hulelayaan wax qarsoon ma ah taas waxay keentay in dhibkii ay ku hayeen magaalooyinka waaweyn oo aad u yaraaday oo weeraradii ay soo qaadayeen ama dhibaatooyinka ay geysanayeen waqti baa u dhaxeeya marka maanta qarax u dhaco laga yaabaa muddo kadib qarax kaas lamid inuu dhaco weli qof inta soo xirtay jaakad isku qarxinaya ama miina meel la dhigay oo qarxaysa way jiraysaa muddana way sii jiri doontaa laakiin fikirkii weynaayo al-shabaab intay baabuur soo buuxiyaan ama inatare ha ahaado gaari weyn ama gaari yar ha ahaado ay meel inta ku galaan ay lug ku galaan aad bay u yaraadeen si xadda ka baxsan hadda marka la fiiriyo warbixinada usbuuciga marka la fiiriyo
falalka argixisada ee caasimadda ka geysanayso maalan tusaale ahaan ama dalka guud ahaan waxaa laga yaabaa inay 75 wiigi ay gaaraysay ilaa markii ugu dambeysay 15 iyo 12 ay gaartay marka numberska laga hadlayo heerka falalka ay geysan jireen aad iyo aad ayuu hoos ugu soo dhacay. muqdisho marka aad joogto ee qof shacab tahay iyo marka aad tahay xubin ka tirsan dawladda dhexe ama maamul goboleedyada waxa u dhaxeeya farqi weyn. dadka magaalada muqdisho markaad wareysato waxay ku sheegayaan in aysan u wanaagsanayn badqabkooda in ay tagaan hoteelada waaweyn, goobaha xubnaha dawladdu ay yimaadaan, taasna ay sabab uga dhigaan in ay laba waxyaabood ka baqayaan: in qarax lagula egto halkaas iyo in shakhsi ahaan loo target gareysto ama loo bartilmaamaysto. taa ma beenin karnaa? Bashir, waqti hore aad ka hadlaysaa marka waxa fiicnaan bal markaan inaad muqdisho tagtido indhaga aad soo aragtid isbedelka weyn oo ku dhacay dadka duruuf waxaa haysatay amni laakiin duruufii aaday dadka waa soo dhiiradeen, dadkii waa hadlayaan, waxay diidan yihiin baadii shabaab ay ka qaadi jirtay inay ka qaadaan, meelihii ay ugu yeeri jirtay inay tagaan, si xor ay u socdaan. intaas kaliya kuma koobnee waxay si bareer ah uga hadlayaan guulaha dawladda ay ka soo hoysay dagaalka al-shabaab bay si bareer ah ay uga hadlayaan. ma yaraanin kaliya cabsidii dadka ay ka qabeen al-shabaab kaliya ma yaraanin, waxaa yaraatay falal dambiyeedkii kale naftooda ayaa yaraaday. dhicii dadka la dhici jiray ciyaal weeradii iyo dhibaatooyin badan oo magaalada ka jirta, xataa marka laga soo qaado daroogada iyo maandooriyaasha iyo dhaqan xumo badan oo jirtay, hay'adaha amniga waxay ku guuleysteen in magaalada amnigeediina ay wax ka qabtaan. dhibaatooyin badan oo dhanka la xiriirta burburinta bulshadana ay wax ka qabtaan, iyo dambiyadii organizerka ahaayoo oo bulshada lagu haayay inay aad u yaraadaan. marka crime-kiina inuu yaraaday, cabsidii shabaab laga qabay inuu yaraaday, wax la qarin kara ma aha, wax adduunka oo dhan laga ogyahay waaye. Soomaalida gudaha joogtay dadka banaanka joogana ay ogyihiin. dagaalka ka dhanka al-shabaab gaar ahaan dagaalkii loogu magac daray macwisleyda waxa uu ku bilowday is-abaabul ay dad shacab is-abaabuleen si ay isaga dhiciyaan al-shabaab, taas oo dadku ay si aad u soo dhaweeyeen, ciidamada dawladduna ay taageereen oo la dagaalameen. wejiga koowaad ee dawladda Soomaaliya ugu magac dartay la dagaalanka al-shabaabna la soo gabagabeeyay sida la sheegay, wejigii labaadna loo gudbiyo. laakiin waxaa muuqata meelaha qaar, gobolada qaar, in habacsanaan ay ku timid dagaalkii lagula jiray al-shabaab. maxaa sabab u ah bay kula? horta habacsanaanta macnay u baahan tahay in la macneeyo. dagaalka la galay waa kacdoon shacab ayuu ku bilowday, dawladda gacan bay siisay, dawladdan muddo dheer bay shabaab la diriireysay. hakad ha galo dagaalka, laakiin 12 13 14 dagaal la socday oo inta badan Kismaayo, Jowhar, Baydhabo shabaab baa ka talin jiray maalmaha ka mid ah, waa laga wada saaray. waxyaaba dadka qaarkood inay fahmaan loo baahan yahay waxay tahay marka shaqada la qabanayo oo urur argixisa oo ninka oo shabaab kale ah aad la diriiraysid, maalin iyo habeen kuma soo gabagabeynaysid. dawladda marka la fiiriyo shaqooyin aad u ballaaran ayay haysaa oo waxay mas'uul ka tahay dhaqaalihii, arrimihii bulshada, siyaasaddii, doorasha dhacda. iyadoo weli waxaa socdo dhismihii sharciyadii iyo waxyaabihii lamidka ahaa, iyadoo waxaasoo dhan laga shaqaynayo ayay haddana dawladda dagaal ku jirtaa. marka dagaalka wejiga koowaad hadda lasoo gabagabaynayaa, si xawluhu ku bilowday, waa socday, dhul aad u tiro badan ayaa shabaab laga xoreeyay, laakiin waxaa hakad galay in wejiga koowaad la dhammaystiro. sababta hakadka u galana waxay tahay dagaal markaad qaadid waxaad u baahan tahay inaad qiimeysid, maxaad xaqiijisay dagaalkaad saad og tahay. deegaanada shabaab ay haystaan horumarka ma jiro, waxbarasho kama jiro, caafimaadka ma jiro, nolol kama jirto. waa meel ay dul degan yihiin oo lacagun ay ka aruursadaan, wax adeeg ah oo bulshada ay sameeyaan aysan jirin. dawladda meel kasta hadda ay tagto waxaa daba socda barnaamijyo xasilin ah oo dhulkaas hadda la xoreeyay, oo labadan deegaan oo Hirshabelle iyo Galmudug ilaa 200 oo barnaamij oo la xiriirta xasilinta iyo dejinta dadka ayaa ka socda. marka dhinaca kale dawladda waxay u baahneed inay qiimeyso dagaalkii la galay,
duruus ka barato ciidan baa meesha galay hawlgalaa la galay dagaalka khasaaraha ka dhalanayo ood ogtahay inaad isdiyaarisid marka muddadaas iyada ah waxaa lagu diyaariyey ciidamo aad u tiro badan la qalabeeyey loo diyaariyey wax kastoo ay u baahnaayeen haddii raashinkoodii caafimaadkoodii shidaalkoodii ay yihiin marka taas waxay keentay in muddo dhowr bilood ah dagaalka hakad uu galo ee habacsanaan ma aha waa tahay arrinta qalabaynta dadka shacabka ah ee dagaalka ku bilaabay kacdoonkan ku bilaabay al-shabaab dowladdu waxay sheegtay inay taageerayso hub iyo saanad waxay u baahdaan ay siinayso soomaaliyana dadka shacabka ahi hub ku filan gacantooda ayuu horey ugu jiray in mid kale lagu kordhiyo maxal baa dadka hubka ayaga haysta dowladda waxay u samaysaa facilities inay wixii kaleeto logistics u baahan yihiin bay u fududaysaa laakiin deegaano badan hub uma baahna dadka ayagaa hubaysan dowladda waxay mas-uul ka tahay hubkaas siday u diiwaangelin lahayd gacanta ku jira u ogaan lahayd dhaqaaqiisa u kontrol lahayd taasoo qayb ka ah dowladda inay qaaddo mas-uuliyadda in hubkan hadhow shacabkaysan isku dhibaataynin maanta baahida maanta jirta waxay tahay in shabaab lala diriro dagaalka shabaab dowladda iyo shacabka iska subaa loogu wada jiraa walwalka dadka ay muujinayaan oo ah shabaab haddii la xoreeyo waa la isdilayaa shabaab joogana waa la isdilayaa marka arrinta ku saabsan beele isku dhacantu ku dhex dhaco dhibaatooyin isu geystaan waxaa jiro qaab soomaalida ay taqaano xeer ku salaysan iyo dhaqan oo dadka ay u heshiiyaan dowladdana waxay leedahay qaab ay u xaliso arrimaha la xiriira isqabashada beelaha ka dhalata ama isku dhacda beelaha ka dhexdhaca laakiin taas sabab loogama dhigi karo dagaalka shabaab hal hakiyo oo shabaab yaana la diririn shabaab waa lala dirirayaa dalkana waa laga xoreynayaa qabaylkana waa la kala badbaadinayaa oo maamul ay wada leeyihiinna way samaysanayaan dowladda na gacan ayay ka siinaysaa dib u heshiisiintooda iyo dowladda labadeeda heer ama federal ha ahaato ama stateka ha ahaadaan taas waxay albaabka u furi doontaa in meeshii mashaariic horumarineed xasilin laga sameeyo marka koowaad marka labaad mashaariic horumarineed in laga sameeyo dadkana loo jiheeyo wax soo saar inay aadaan hubkana gacanta dowladda ay kusoo wareejiyaan marka cabsida laga qabo haddii shabaab meesha ka baxo waa la isdilayaa waa cabsi dadka u muuqata laakiin wax ka qabashadeeda ay sahlan tahay wasiir soomaaliya dowladda soomaaliyeed waxay codsatay in laga qaado cunaqabataynta hubka arrintaas su-aalo badan ayay dhalisay in soomaaliya xilligan cunaqabatayn hub laga qaado ma wax wanaagsan ba aad iyo aad bay u wanaagsan tahay soomaaliya in cunaqabataynta laga qaado cunaqabataynta soomaaliya waxa loo saaray waxay ahayd markii ay dowladdii burburtay unbaa cunaqabatayn la saaray laakiin hadda oo la joogo marka la leeyahay cunaqabataynta laga qaadaya shaqo aad u tiro badan ayaa lasoo qabtay haddii cunaqabataynta si sahlan iskaga qaadayo maalinkii ugu horreeyey oo dowladda ay tiri waxaan u baahannahay inaan shabaab la dirino hub u baahannahay oo 10 sano ka hor ah ayaa laga qaadi lahaa laakiin 10kaas sano shaqo aad u tiro badan ayaa lasoo qabtay qiimeyn baa lagu sameeyey si joogto ah ayaa wufuud isdaba joogta ay u tagaan oo la qiimeeyaa horumarka aan ka samaynayno in dowladdu ay diyaar u tahay mas-uuliyadda inay qaatana waa muuqataa ama shuruuc ha la xiriirto ama habraacyo kaleeto oo hubka lagu ogaanayo gacanta dowladda ama gacan ka baxsan hadduu ku jirona lagu ogaanayo diiwaan dhexe inuu leeyahay oo la garanayo cidda hubkaas mas-uulka ka ah haddii hadhow dembi lagu galana ay sahlan tahay in hubkaas meeshii uu ka yimid iyo ciddii mas-uulka ka ahayd la ogaado marka weli waxaad u malaysaa dadka inay ku nool yihiin fikirkii iyo laakiin shabaabku waa dad la mid ah ciidamada dowladda iyo dadka kale Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku sugan ama dagaalka kula jira waxa hub ay haystaana waa la garan karaa hub waaweyn oo haatan dowladdu ay dalbato iyay kula dagaalamaysaa shabaab waxaa la ogyahay inay yihiin
dadka la dhashay oo shakhsiyaad hubka ay haystaana uu ugu weyn yahay qoryahan yararka ah AK47 iyo waxyaabaha la midka hubka weyn ee shabaabka lagula dagaalamayo maxaa looga baahan yahay waxaa laga yaabaa inaad adiga ciidan ahayn inaad dagaalka shabaab aadan gelin inaysan kuu muuqan karin baahida loo tusaale ahaan waxaa loo baahan yahay diyaarada dagaal loo baahan yahay waad fahmi kartaa marka diyaaradaha dagaal marka ay yimaadaan ama la adeegsanayo muddadu say u kooban tahay in dagaalka la soo afjaro tusaale ahaan marka dowladdu waa inay xaq u yeelato inay mas'uul ka noqoto amnigeeda waxaad og tahay badeena waxaa kumanaan kun oo maraakiib ah ayaa si sharci darro ah bilyanis ayaa laga qaataa maraakiib aan ku ilaashano ma haysano xuduudeena way furan yihiin waxaan u baahnaa inaan difaacno marka laga soo tago shabaab iyo dagaalka lagula jiro haddana waxaad u baahan tahay dhaqaalahaagii iyo kheyraadkaaga dabiiciga ahaa sidii aad ku difaacan lahayd marka leeto waa in maskaxda lagu haayo dowladda Soomaaliyeed waxay soo gaartay meel ay mas'uul ka noqon karto inay damaanad qaato hubka ay mas'uul ka tahay iyo hubka gacanta dadka ku jira sidii looga shaqayn lahaa si nabad ah inuu gacanta dowladda u soo galo ama la ogaado cidda gacanta ku haynaysa gobolka Gado waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan kuwa siyaasadeed iyo kuwa amni intaba kuwa siyaasadda ayaan ku hormaraynaa dhawaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu gobolka u magacaabay gudoomiyahaasi waa uu tagay xaruntii gobolka ee Garbaharey waxaa ka dhashay shaqaqooyin maxaad kala socotaa arrimahan dabcan waa run gudoomiyihii meesha loo magacaabay waa joogaa meeshii buu joogaa ilaa iyo hadda wax gacan ka hadalo meesha ka dhacay ma jirto meesha way xasiloon tahay rajan waxaa laga qabaa dadka meesha jooga intay wada hadlaan inay isfahmaan maadaama dad ehel ah oo wada dhashay ay yihiin laakiin in ay dhacday in la weeraray mid ka mid ah duubabka dhaqanka ugaaskii deegaankaas in habeenimo gurigiisa lagu weeraray taa ma wax la dafari karaa cidda fartimee jirta wax shaqaqooyin kama dhicin ayay ku jirtay wax dhibaato kama dhicin ayay jawaabtaada hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay markii gudoomiyaha meesha uu tagay gudoomiyaha Jubbaland ay soo magacaawday marka meesha uu tagay waxaa dhacday diyaarad meesha ku soo degtay ayaa la xabadeeyay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay gacan ka hadal ma dhicin oo dadkii deegaanka hadda degmada Garbaharey ku nool nabad bay ku joogaan xasilooni bay ku joogaan iska hor imaadka meesha kama dhicin dabcan waa la kala arrin duwan yahay khilaafna waa jira heshiisna laguma aha xaaladda sida ay tahay Garbaharey xaaladda ka jirta si heshiis ku imaanaya meeshii odayaal baa jiro siyaasiyiin baa jiro waxgarad baa jiro dhammaantoodna waxay ku fogan yihiin meeshaas qalalaasay inuusan ka dhicin sida ugu quruxda badan oo nabad ku imaan kartana iyo wax heshiis lagu yahay ayay ka shaqaynayaan ugaasku waxa uu ku baaqay shirweyne ay isugu yimaadaan ama isugu timaado beesha gobolka degta xoogeeda kadibna ay iclaamin doonaan shirweyne beelaha gobolada Jubbooyinka ay isugu yimaadaan adigu shirarkaasi ma taageersan tahay iyo hadallada ka soo yaray baaq ka soo yaray ugaaska aniga horan uga hadlay arinta geedo iyo xaaladeeda inaan dib ugu soo celin wax macno ay sameynaysa ma leh laakiin dadka deegaanka u taala in arrimooda ay xal ka gaaraan marka arrimooda ay xal ka gaaraan ay taageer heli karaan laakiin inta ay iskhilaafsan yihiin kala aragti duwan yihiin cid qasbi karta ma leh si kastoo aniga aan u yiraahdo waa diidanahay ama waan taageersanahay waxay ku soo kordhinaysa ma leh xalka waa inuu gudaha ka yimaado dadka ehelka ah oo deegaanka wada leh waa inay ku heshiiyaan nabadooda iyo horumarkooda iyo xasiloonidooda sida ay ku jirto kuna qaadi karto marka wax garad badan baa ayaa gacanta ku haya mana raba inaan ka hor dhaco wax garadkaas wanaag ay ka shaqaynayaan oo wareys yar oo bixiyo oo kala daadiyo wixii wanaag ahaa oo laga shaqaynayay shaqo badan baa meesha ka socoto waxaan rajaynayaa in lagu guuleysto si nabdoon oo buuq aan lahayn oo qaylo aan lahayn in loo gudbo isfaham darrada meeshaas ka jirta gobolka Gado xaaladaha amni darrada ee ka jira waxaa qayb ka ah duqayn aan loo meeldayin oo aan joogsi lahayn oo dowladda Kenya ay ku hayso deegaano ka mid ah gobolkaas walina ma jiro inta la og yahay mas'uul gobolka ka soo jeeda oo dowladda dhexe ama dowlad
federaal maamul goboleed ka tirsan oo arrintaa ka hadlay maxaa hortaagan in dadka mas-uuliyadda aad u qaadeen ay gobolka Gedo ka mid yihiin in aad u hadashaan duqeyntaana laga joojiyo mas-uuliyadda marka laga hadlayo gobolka mas-uuliyiin buu leeyahay mas-uuliyiin state buu ka tirsan yahay gobolka oo Jubbaland la yiraahdo ugu dambeyntiina dowladda federaalka ah ayaa wadankii oo dhan mas-uul ka ah dowladda federaalka talaabooyinka ay qaaday waa in ay la xiriirtay dowladda Kenya dhibaatooyinka meesha ka dhacay ay u sheegtay marar badan su'aalaha imaanaya waxay tahay actors aad u tiro badan baa wadankii ka jira duqeymaha dhacaya markaad weydiisid qofka tiraahdo cadeyn miyaad keeni kartaa wuxuu ku leeyahay waa loo maleynayaa si doonto ahaato heer wasiir iyo heer wasaaradda arrimaha dibadda iyo heer hay'adaha amniga xiriir ayaa dhexmaray in dhibaatooyinkaas aysan soo laabanin way caddahay duqeymaha ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Gedo sida degmada Ceelcadda ama deegaanka Ceelcadda oo kale meel walba ayayna yaalaan hay'adihii xuquuqul insaanka cid walba way aragtaa waxaad leedahay marka caddayn looma hayo in duqeyn u dhacday horta deegaanada waa labo deegaanada qaarna gacanta dowladda ku jiraan deegaanada qaarkoodna gacanta dowladda ka baxsan yihiin duqeymaha meelo badan bay ka dhacaan waxaa laga yaabaa inaad maqashid duqeymo dhacay ayuu loola jeeday la beegsanayay al-shabaab inay dad rayid ah ay wax ku noqdeen calaamada duqeyn baa ka dhacday mid labaad baa ka dhacday doorkii dowladda ay ciyaartay waxay ahayd in xildhibaano ka socda mas'uuliyiin ka socda deegaanka gobolka Gedo ay la kulmeen dowladda Kenya ay gaarsiiyeen wixii meesha ka dhacay inay ashaka yihiin ay u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adaha amnigana in lala wadaagay dhibkaas inuu meesha uu ka dhacay in wax la qabtana loo baahan yahay waxa intaas ka disay dambana keeskii wali gacanta ayaa lagu hayaa oo ma dhamaanin dowladda Kenya maadaama xuduud dheer Soomaaliya ay la leedahay amnigeeda iyo amnigeena isku xiran yahay in dadka shacabka ah ama rayidka ah ama ha ahaato dowladda Kenya ama dowladda Ethiopia ama dhammaan dowladaha hawlgadana la galaya falal waxa ka dhaca dad shacab ay wax ku noqdaan kaysaska waxa kamid ah case hadaba arrintiisa dacwadiisa ay hortaalo Amisom oo dad trade ah oo degmada Garbaharey la sheegay ciidamada Amisom inay ku laayeen dadkii eelada u ahaa dacwadoodiina ay hortaalo xafiiska Amisom xiriir lala sameeyeen hadday gacanta ku hayaan marka dhibaatooyinka meesha ka dhacay dowlad ahaan wixii la gudboonaa oo ahayd inay gudbiso oo wadda diblomaasiyad isticmaasho oo xogtii meeshaas ay ka heshay u gudbiso waa la sameeyay waa lagu daba jiraa aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane wasiir adiga mudan inaad jacayl u muujinno oon u mahadcelinno dadkiina soo garab qabtay ee na caawiyey si aan horumar u gaarno waa ay fududahay adigoo isticmaalaya World Remit waxaad si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar waxaanaad lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga way fududahay soo maaha ma tirtiro abaalkaaga ismaadiyo wanaaga